baarlamaanka waxaan idinku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. intaa dabadeed waxaan rabaa inaan u mahadceliyo guddoonka baarlamaanka oo runtii annaga oo ku hadlaynay afka guddiga horumarinta adeega bulshada annagoo aan ogeysiin waqti badan siin saakay aroortii markaanu ku soo kallahnay aanu ka codsannay in ay arrintan dilka iyo gubista iyo garaacidii mayd garaacii axmed mukhtaar saalax in ay noogu daraan ajandaha ayaan uga mahad celinayaa. waxaan leeyahay ajir ilaahay idinka siiyo, taariikhduna waa idin xusaysaa. intaa dabadeed wixii aan odhan lahaa guddoomiye ku-xigeenka guddiga horumarinta adeega bulshada marow xildhibaanada aamina ayaa tiri soomaalidu waxay tidhahdaa meel saddex eray u baahan soddon laguma yidhaahdo. marka taariikhda iyo ma dabagelahayo. waxaan leeyahay falkaa dhacay ee foosha xun ee lagu gubay, lagu dilay, lagu baangadeeyey, batroolka lagu shubay ninka marxuumka ah ee geeriyooday waxa ay gilgishay damiirka ummadda Soomaaliyeed dibadda iyo gudahaba meel kasta ay joogaan. aniga gaar ahaan runtii afartii casho ugu dambeysay hurdo maladin shalay ayaan waxaan u imid guddiga adeega bulshada oo arrintan iyada aan ka doodnay. marka waxaan leeyahay arrinta iyada ah waa in sida ay tahay aan u galnaa oo ugu yaraan qoyskii dhibku gaaray baarlamaan ahaan aan u muujinnaa walaaca arrintan oo ay nagu hayso. waxaan soo jeedin lahaa in baarlamaanku arrintan iyada qaraar ay ka qaataan dilalka caynkaana oo ku salaysan micnaha quursiga in aysan micnaha aysan shal ku lahayn diiniyan iyo dhaqan Soomaaliyeed intaba aysan ahayn, ay tahay dad fara ku tirisa. waxaan soo jeedinayaa in wacyi gelin aad u ballaaran loo sameeyo ummadda Soomaaliyeed. waxaan soo jeedinayaa qoyskii marxuumku uu ka baxay in baarlamaanka kano xubno ay u diraan guryahooda ugu tagaan la wadaagaan walaaca iyo dhibaatada. waxaan soo jeedinayaa lamaanihii isdoortay wiilkii iyo gabadhii iscaashaqay warbaahinta aan ka arkayna social media in loo sameeyo aroos qaran oo baarlamaanku uu hogaaminayo ayaan micnaha soo jeedinayaa. waxaan soo jeedinayaa in haddii ilaahay ku idmaayo arrintan iyadaa ee dhacday ee dhibka micnaha iyo baaxadda ay leedahay carruurtii iyo agoontii uu ka tegey iyo odaygii camoolaha ahaa aad dhegaysanayseen warbaahinta aad ka dhegaysanayseen 80 jirka ahaa ee yidhi isagaa indha ii ahaa, isagaa wax ii ahaa, oo hadalkiisu ahaa in isagana iyo dowladda aan micnaha culays ku saarno inay ballan qaado noloshooda carruurta 12 ah ee isagu u quudin jiray. waxaan soo jeedinayaa in arrintan iyada culayska ay leedahay inaanu samayno. waxaan leeyahay ciroolaha dibinta ruugay rabbow dartii aan noo ciqaabin. ilaahay waa noo ciqaabayaa haddaynan micnaha waxba ana ka oran. intii aan micnaha meesha fadhiyey oo runtii guddoomiyuhu uu baarlamaanka noo furay ayaa waxaa igu soo dhacay erayo aan isleeyahay armaad ku cabirtaa. waa idinkii ogaayo haddee waagii baarlamaanka aanan ku jirin bannaankan qayladhaanta ka jirin jiray. dadku hadda waxay yidhaahdeen cabdi shire qayladhaan ma heeso waxna ma tiriye maca dhacay. war haddee qayladhaantii haddaan hadal u bedelo oo baarlamaankaan ka idhaahdo oo halkii aan ka heesi jiray hadda waxqabad aan ku daro. marka waxaan igu soo dhacay erayadan xaq daboo la saaraa wax ka daran ma uu jiro. xildhibaan isdaba qabo intaan daartu nagu dumin aan ka doodno geeridii axmed dulankii lagu dilay. haddaynaan isdaba qaban dulligana ka dhiidhiyin dada waxaa imaan kara daayin inuu caroodo sidii duulkii nebi nuux duufaana culus iyo daad ina xambaariyo dabayla ina qaadaan dukum daakum inaga dhigo. haddaynaan wax ka oran haddee waad garan karaysaa waa culimmadii ay arrintan ka hadashay. mar kale waxaan rabaa halkaana fursaddan aan ka faa'iidaysto u mahad celiyo guddoonka oo runtii ka guddi ahaan annagoo aan micnaha hordhigin guddiga guud ee golaha saakay salaadii markaan soo kalaanay noo fududeeyey in ajandaha arrintan lagu daro. aad iyo aad baad u mahadsantiin. wabillahi tawfiiq.